laga yaabaa ninka Soomaaliyeed inuu caruuro u arko laakiin ninku gurigiisa markuu joogo waa ilmo weyn waa caruur halkan aad ku caruur ahaataa loogu talagalay sida daraadeed uu nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi Aisha intay dabada u soo yara baxeen buu yidhi inakeen baratanne waxaasho inan yara waa la baratamay markaasay ka dheerays muddaa la joogay maalin dambe oo dal safar la jeega buu yidhi Aisha maantana waa baratamayna inakeen waa yara marmarsato may waa baratamayna buu yidhi ina dhaqaaji waa la baratamay markaan Aisha waa yara cuslaa oo inantii yarayda fududayd maaha sidii hore way iska bedeshay dabeetana wuu ka dheereeyay nabigu intuu ka dheereeyay buu waliba yidhi tilka bitilka taati u turbu nabigu yidhi salawaatullaahi wa salaamu calayhi midkeen baa arki kari lahaa isagiiyo haweenaydiisu intay dabaddaa u yara baxaan inay baratamaan yani waxa laga yaabaa inay suuradda ninka Soomaaliga agtiisa taalla inay tahay ninnima la'aan ama waxaan yani dhaqan nin weyn u dhaqmo waa dhaqan nabi anigu waxaan ka warramay waxaan idin mitaalka kama bixinayo cid kale tusaale kama bixinayo waa tusaale nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu calayhi oo ah bashariyada ciddii loo soo diray inuu hago ilaahayba wuxuu abuuray kuugu jeclaa subxaanahu wa tacaala sida daraadeed ayuu nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi dhaqamaa ka muuqanaya muujinaya in guriga kani uu kalgacalkaasi ku dhisnaado sida awgeed buu Aisha maalin ku tiri ilaahay rasuulkiisa haweenka loo dhamay kunya bay leeyihiin ana kunyo Cabdullaahi buu ugu yeertay imaam Ahmed xadiiskiisa ku tilmaamay bal markuu u yeeray uu tarxiimin jiray Aisha magaco badh la gooyo magaco in la tuuro in yani magacii haweentu aan la wada dhamayn nus yar inta la sheego inta kalena la iskaga tago kullu dalik waxay sheegaysaa luqadatan iyo qaabkan loo dhaqmayo inuu yahay qaab mashaacirta la ilaahay Aisha inan yara ee xabashida ciyaaraysa waxay tiri mar rabtaa buu nabigu yiri qoladan ciyaaraysa ina daawato haabay ku tirtay tan nabigu isu taago dhinaciisa xaga dambeynta iska soo taagtay ayaan dhabanka u saaray bay leedahay oo maanta ma ka daashay markuu yiraahdaba may baan yiraahdaa anigoo rabay dadku inuu ogaado bay leedahay halka nabiga ka joogo ciyaarna ma rabina waxaan rabay bay leedahay soo nabigu igu jajaban yahay aan agtiisa qiimaha ugu leeyahay in ay dadka kale ogaadaan ama dumar kale inay ogaadaan waxay tilmaamaysaa qadaayaadkani ruuxil madax in ay ku jirto inuu nabi Muhammad leeyahay khiyaarukum linisaa'i hadiiskii Tirmidhi Albani saxiix ku tilmaamay waa idinku fiicnay kuwa dumarkooda ugu fiican baabkan waxaad moodaa inaan tilmaamay mitaalkii koowaad هل مفتاح السعادة الزوجية وشركة فيكون نية قبل يسخد الصدين شركة الرأسمال كهانتيد الرسم جاي هيستاني يكون تجارين يامبين لو الحب وهلكو كبل مفتاحة تاني مفاتيح دواء الكبض بيلاد هاي المامان علماء يكمل ده التغاضي إن حساب تبضني تزيد المسافات بعدا إن ليس دلقات وحياة بدن إيش اللي جربه كالقعل قوة برناضه فحكو سوكوبي يوم قريق مسلم كاي وقريق كالقعيل يسؤور فيو بان كله وقري النحاريس إيوه معاملة في عنايد النصوص القرآن في حديث الشيخ إحسانية إيثارية وناقة وصعدان كده عدالة الرحمة وحا قرآن كشيري يودن ويوا ما شاء الله الربو إن لغبر باريو وبك بلشدة وصوكعية وبك ينقري خيمة ده سوى يقعنا معنى الحب يددك كالقعل كالله هنا نحاريسته عدالة نمرسنانته عفوية تصامحة كل ذلك النصوص القرآن يترضى بدن لأيشيغيسو الولد kala kula dhaqan waxa awla waa ugu horeeyana kula dhaqanta maxay tan nolosha wadaagtaa haweenna waxaan ku soo koobaya iyada nabi Muhammad wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu calayhi gabadh baa u timid dabeetana danay lahayd baa ay ka wareysatay markay dhamaysatay wuxuu ku yiri nin ma leedahay haabay taasku tihiin buu arrinkiisa saata waxaanu taag waaye mooyaane wuxuu u baahay uma meel yeela baylaad yani wax kasta in raali galiyaabaan isku daya wuxuu nabigu yiri ku dadaal isaga janniya naartaadii buu nabigu yiri idan haweenayda ninka waxa caanka ah takabbur bay dhahdaa iyo kibriya marka wuxuu isleeyahay armaad dad waxa yar samayso lagu yeesayo hoos soo dhacday waa uqdatu naqs raga ku jirta bay dhahdaa cagsiga dumarka bay dhahaan waxa ka asala sulukiyaadka lagu yaqaan alcinaad madaxdaygo ninkan dabadabasani badan uu ka arko uu ku gumaysanayay aad wax iska dhicisi laakiin guriga dhabtahay waa guriga labada midna ool ninkuna markuu guriga joogo isla weyniyo dhan uu ilaabay haweentuna markay gurigeeda joogto طاعة دمانتها دايلتين أي هوانت واحد لجربي حكوا النبي محمد تلمامي صلوات الله وسلامه عليه معاذ بن جبل مركو شام يميلان كي يميو أركي قراء ضوبكو دي ودادو دي السجود يسوي النبي إلى أدنى نكون سجودنا أو سجود دي النبي كويري صلوات وحرت طبعا سوام حوق قصدي بوشاري
jiray nabi wuxuu yidhi haddaan bashar uun fari lahaa inuu bashar u sujuudo bini aadamuun haddaan odhan lahaa bini aadam sujuuddu waa maxay sujuuddu waa meesha muujisa inaad ogoshahay ilaahay inaad addoonkiisii tahay waa waxa muujiya jidhkaaga halka ugu qaalisan ee ugu sarraysa aad haysataa waa wejigaaga aad soo nadiifisay ka dhalaalisay markaad halkaad cagaha ku haysay saarta macnaheedu waa maxay waa ilaah waa isu kaa dhiibay waxaan ogolay inaan addoonkaagii ahay waa calaama lilistislaam waxaa la yidhaha haddii bashar uun loodhan lahaa bashar adna madaxa dhulka u dhig haweenkaa loodhan lahaa ragiina u sujuuda idan haweenayduna cinaadka ha iska dayso ninkuna takaburka ha iska daayo guriguna kalgacalkii maalintii arooska laga olololaahaa lagu dhisayey maalinta xabaasha la qabanayo inuu siduu jiraabaa loo baahanyay ma gaboobe ha gaboojinina wallahu aclam billahi tawfiiq